جزاك الله خير شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ waxaan isguursanay nin ayaan dambe ayaa aabahay ugu yiri ninkii uu ku soo furay markaas aan nin kale isguursanay aniga oo uur leh ayaa ninkii hore yimid markaas uu yiri aabaha ismaba annaan maqal ee xagee kugu furay marka labadooda kee qaba hadda. bismillah alxamdulillah masaladani mas'alad inay qadaa iyo dacwo gasho u baahan way qadiyadu inuu qofku furay xaaskiisii ama waxaan sidaa u dhaceen kaliya ismaqal laguma ogaado dad fiqaada oo maqlay baa soo tabin kara waxay u baahan tahay aabihiinta loo yeero dacwada la qaado eraygii uu ku yiri gabadha ninkii waa ku furay soo caday in la yiraahdo oo bayina iyo markhaati la yiraahdo kan hadduu aabuhu qirtay warka inuu sajirin isagu sameeyay ama markhaati keeni waayo oo ninkan inta loo gudba la dhaariyo aabuhu ku adkaysto dadkiina ma haya yiraahdo ama markhaatigii ma garanayo dadkii yiraahdo ninka la dhaarinaya warka inuu san jirin haddii sidaa loo dhaariyo ama aabuhuba ka noqdo yiraahdo waan khaldamay gabadhan ninkii hore qaba gabadhan ninkii hore qaba haddii aabuhu cadayntii markhaatigii keena ninkan inuu furay kadibna ninka markuu guursanayay ciidadii ka dhamaatay de ninkan dambaa qaba sadarteed qadiyatul qadaa weeye oo u baahan dadkii warka keenay aabaheeday aamintay gabadhu in la yiraahdo soo cadee wixii aad sheegtay haddii la cadeyn waayo ninkii hore qaba ilmahana ninka dambaa iska laho aqal shay waa ilmo shubha ku dhashoon zina iyo xaraan loo qasdin wabillahi tawfiiq.